السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وقتك هيدين بركايو ولا لها المحسنين تيكوحنا يوتيوب كيغا المحسنين إيو فيسبوك كيغا المحسنين إيو بيج كيغا بروفايل كيغا محمد نور آستو maanta waxaan rabaa fariin inaan idinla wadaago iyo codsi waxaa layga jabsaday facebookgeygii maxamed nuur aasto iyo pagekii aan ku lahaa facebooka almuxsiniin labadaba qadku way ka maqan marka walaalaha muslimiinta ah ee walaalaha ahaa oo ku midoonay ilaahay dadkiisa ku saaxiibnay oo khayrka isla kaashin jirnay isla faafi jirnay waxaan ka codsanay marka ciwaankaas la jabsaday lacalla haddii oo aad ka aragtaan idin soo gudbiyo macluumaad ama codsiyo ama waxyaabo kale oo idin soo diro aniga ma ihi ilaa aan ka soo celinayo insha Allah waxaan isku dayaynaa insha Allah inaan soo celiyo oo insha Allah sidii hore aan ku soo celiyo hadda Facebook page-ka uu shaqeynaya almuxsiniin wali waxba lagama bedelin laakiin profile-keygii sawirka waa laga qaaday magaciina waa la bedelay haddii aan raadiso maxamed nuur aasto ku soo bixi maayo marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa oo asxaabtaha Soomaalida inta codka ay garanaysa muuqaalka inay share gareeyaan si dadkii igu xirnaa ay u arkaan insha Allah dhawaan haddii aan soo celiyo waa soo celiyay insha Allah haddii lacala ay ii suurtagelayso inaan soo celiyo markaana waxaan samayn doonaa haddii Ilaahay ka raali Facebook cusub حتى waxa meesha ka marnay in YouTube-kayga loo soo dhacay laakiin YouTube-ka alxamdulillah waa soo celiyay laakiin Facebook ayaa dib weyn kala kulmay waayo lambarkii ayaa la bedelay email YouTube-kana waxa waaye Facebook-ka mar hore ayaa sameeyay waxa uu ku xirnaa hotmail uu ku xirnaa si fudud ayay ku kale markay jabseen laakiin insha Allah hawshiisa ayaa ku jira haddii nasiib uu yahay waa soo celinaa insha Allah laakiin ma garanayo qofka damcay inuu jabsado qof Soomaali inuu yahay u maleemayo waayo page-kaas iyo profile-kaas wax khayr ayaa lagu gudbinayay lacagna laguma sameynaynin marka ma aqaan insha Allah page waxa ku xirnaa ugu yaraan 13,000 iyo ilaa 14,000 oo ku xirneed halka profile-kana asdiqaagayga ama friends-kayga ay gaarayeen ilaa 5,000 laakiin dhimana insha Allah dadkaas haddii nool yihiin ama asxaab ay yihiin waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan gaari doono haddii aan soo sameyno insha Allah page cusub iyo profile cusub muuqaalka kan ku xiga ayaan soo dhigi doonaa YouTube-kayga hadduu Ilaahay ka raali noqdo Ilaahay idin barakeeyo marka qof kastoo idinla soo xiriira hadduu wax idinka soo codsada ama hadduu wax idin soo diro ma aha qofka taqaaneen oo maxamed nuurka ahaa ma aha waa qof kale oo Ilaahay aan ka cabsanaynin oo meeshaas u dhacay jabsaday marka waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim inay ka feejignaana waayo hadda ka hor ayaa waxaa maqlay qof in Facebook-giisa la jabsaday oo qof saaxiibkiisa ahaa ama dadka aad ugu dhawaa lala xiriiray oo lacagteen iyo waxaas la weydiiyay marka tii aysan taas u dhicin waxaa idinka codsanaa muuqaalkan inaad ka laab aad u share gareysaan meel kasta aad ku share gareysaan YouTube-kayga magaciisa Facebook-kayga page-kiisa magaciisa taas soo qori doona profile-kayga waxaa ku xirneed 4 page ayaa ku xirneed mid ah almuxsiniin mid ah waxaa ku xirnaa muxaadaratul yawm la dhihi jiray mid waxaa ku xirnaa oo caawi agoonta agoon caawi iyo mid oo suuqgeyn oo waxa waaye afartaas ayaa ku xiran isla kulli way baxeen marka qadku way ka baxeen dib ma laha wax saasi weyn iguma hayso alxamdulillah cilmigii iyo farsamadii darad aan ku sameeyay waa sameyn karaa dadkii dalaa walaalaha darad oo ii soo saaray maxaa la falowda ilaagta iyo waxaana way imaan doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo laakiin waxaa aad ugu digayaa ama aad ugu dheeraanaya yaana laydinku soo gabanin wax kale yaa laydinku soo dirin waxyaabo codsanaya laydinku soo codsanin numberkayga Facebook waxaad maalmaha soo socda insha Allah waxaan wax soo dhigi doonaa kaliya YouTube-kayga iyo TikTok-kayga Facebook malihi Facebook-gii waa layga jabsaday ilaa aan kaas ka soo celinayo ama mid kale aan ku sameynayo aniga ayaana idin soo socodsiin doonaa. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.